بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. dhegaystayaal daawadayaal mar kale kusoo dhawaada casharkeenii labaad ee secondary form 4 chemistry chapterkiisii koowaad hydrocarboniska aynu ku guda jirnay. waxaan usoo qaybinay hydrocarboniska labo, aliphatic iyo aromatic. maanta waxaan bilaabaynaa aliphatic ayaan bilaabaynaa. Aliphatic hydrocarbons. Aliphatic hydrocarbons ayaa maanta bilaabaynaa. Aliphatic maxaa la yiraahdaa? Aliphatic hydrocarbons waxaa la yiraahdaa these are hydrocarbons derived by chemical degradation of fats and oils. Chemical degradation of fats and oils. Aliphatic hydrocarbons waxaa laga keenay fats and oils. Saliidda dhirta iyo saliidda xoolaha ayaa inta badan waxa weeyaan laga helaa aliphatic hydrocarbonska. Subdivided waa la qaybiyaa, saddexa loo qaybiyaa aliphatiga. waa alkane, waa alkene iyo alkyne. saddexdaasaa loo kala qaadaa. ka bacdina waxaan geli doonaa insha allahu tacaala qaybta labaad oo ah aromatic. Aromatic hydrocarbons. qolyaha labaad oo aromatic la yiraahdo. kuwa koowaad aliphatic baynu ku sheegnay waa alkane iyo alkene, alkyne baa ku jiro. kuwaana waxa weeyaan waxaa ku jiro benzene iyo benzoid, benzenoid iyo non-benzenoid. kuwa benzene ah iyo kuwa aan benzene ahayn ayaa ku jiro. Aliphatic hydrocarbonska waxaa laga keenay fats and oils, saliidda iyo dufanta ayaa laga keenay, saliidda xoolaha iyo saliidda dhirta. Aromatic hydrocarbons ayagana waxaa laga helay chemical degradation waa iyaduna waxaa laga keenay waa kiimikooyin. iyaduna waxaa laga keenay certain pleasant plant of certain pleasant plant, geedaha qaar oo carafta leh ayaa laga helaa ayaguna. Aliphatics waxaa laga helaa fats and oils, saliidda xoolaha iyo saliidda dhirta ayaa laga helaa inta badan. Aromaticsna waxaa laga helaa ayagana pleasant plants, geedaha qaar oo carafta leh ayaa laga helaa. haddaan hore usii guda galno, kan ugu horeeya marka kan aan ku hormarayna waa alkane. Alkaneka oo laga helo aliphatic carbonska kan ugu horeeyo. alkanes ayuu casharkeena maanta noqon doona insha allahu tacaala. alkanes maxaa la yiraahdaa? waa saturated hydrocarbons. waa hydrocarbons oo dherigsan weeye. hydrocarbons oo dherigsan weeye alkanesku. Containing only carbon single bond. Containing wuxuu ka kooban yahay keliya carbon single bond. dabaradiisii waxa weeyaan hal dabar oo isku haystaa. alkaneka wuxuu isku haystaa hal dabar oo isku haystaa carbonadiisi. double bond male, triple bondna male. marka alkanes maxaan ku qeexaynaa? waa saturated hydrocarbons, waa hydrocarbono dherigsan, only containing carbon single bond. keliya waxay ka kooban yihiin hal carbon oo hal dabar isku haystaan. qaacidada lagu dhiso waxa weeyaan C sub n H sub 2n plus 2 formula. qaacidadana lagu dhisaa alkanes markaa dhisayso. structure alkane markaa dhisayso qaacidadana ku dhisay oo ah C oo ah number of carbon, n waxay u taagan tahay waa lambarka carbonka. haddii carbonka مثلا uu hal noqdo, مثلا hydrogenkana halkan laba taalo, anta hala ku bedelaysaa markasto waa lambarka carbon haddaa hal u qaadato.
plus 2 halka waxa ka soo baxaya marka hal carbon iyo laba hal ku dhufo laba ugeey 4 iyo 4 hydrogen hal carbon iyo 4 hydrogen waa methane ayaa lagu dhawaaqaa waana alkane waa structure-ka koowaad oo waxa weeyaan oo alkane uu leeyahay methane waa gas waa gas kala shito oo la isticmaala la yiraahdaa methane gas marka saas ku dhisaysaa مثلا waxaan rabaa structure-ka labaad inaan dhiso مثلا ethane inaan dhisaan rabaa carbonka hadana inaan ka dhigo carbonka labaad inaan sameeyaan rabaa مثلا intaana laba bedelayaa n mar walba labaan ku bedelayaa plus 2 waxaa soo baxaya marka laba carbon iyo 4 hydrogen waa structure-ka labaad aan sawiray asagana waxaa la yiraahdaa ethane kii hore wuxuu ahay hal carbon oo ahay methane kana waa laba carbon hala ethane qaacidaas ku soconaysa marka propane oo kale isla qaacidaas loo sawiraa waa 3 carbon iyo 8 hydrogen oo noqona hadii qaacidada aan ku dhisto propane allah waa structure-ka saddexaad butane oo kale waa 4 carbon iyo 10 hydrogen oo noqona butane allah asagan structure-ka shanaad wuxuu noqonayaa pentane waa 5 carbon 12 hydrogen oo noqona hadii qaacidada aan ku sii dhisto waa pentane structure-ka lixaad wuxuu noqonayaa 6 carbon iyo 14 hydrogen hexane ayaa la yiraahdaa asaguna ka kale waxa weeyaan 7 carbon iyo 16 hydrogen oo noqonaya heptane allah asagana heptane ka kale wuxuu noqonayaa 8 carbon 18 hydrogen wuxuu noqonayaa octane ayuu noqonayaa structure-ka sagaalaad aan sawirayo alkane wuxuu noqonayaa 9 carbon iyo 20 hydrogen wuxuu noqonayaa nonane ayaa la yiraahdaa ka ugu dambeeyo oo aan qorayo wuxuu noqonayaa 10 carbon iyo 22 hydrogen wuxuu noqonayaa decane ayuu noqonayaa decane sidaas ayaa waxa weeyaan loo qorayaa structure-da alkane hab kale waxa jiro oo loo qoro kan waxa weeyaan waa formulada weeye molecule ahaan sidaas ayaa loo qorayaa structure ahaan ayaa u sawiri karnaa oo ah qolfoof ahaan u sawiri karnaa tan waxay ahayd molecular formula ay ahayd qaabka waxa weeyaan isaga loo dhiso loo akhriyo qaabka loo sawiro carbon oo ku dabran 4 hydrogen saana u sawiraysaa waa hal carbon 4 hydrogen oo ku dabran yahay ethane-ka sawir hadii lagu dhaho saasa u sawiraysaa methane-ka afwan ethane-kana waxaa loo sawiraa waa 2 carbon iyo wuxuu ahay 6 hydrogen ayuu ahaa 2 carbon iyo 6 hydrogen laba ku dhufo 4 laba ugeey 6 marka 2 carbon 6 hydrogen saana ugu dambaysaa marka 1 2 3 4 5 6 structure ahaan waxa weeyaan qaabkaas ayaa waxa weeyaan loo sawiraa propane ku saaray waa 3 carbon iyo 8 hydrogen saddexdii carbon waa kuwan 8 hydrogen aan ku taxaa 1 2 3 4 5 6 7 8 halkaas waxaa la yiraahdaa structural formula tan waa molecular formula kana waa structural formula waxaa kala sameyn karaa waa aruurin karaa مثلا hal carbon 4 hydrogen ku dhagan Soomaa waxaan dhihi karaa CH4 aan ku soo kooba kana waa aruurna hal carbon meeqa ku dhagan 1 2 3 hydrogen ku dhagan saasaan u dhahaa CH3 aan dhahaa kana 3 ku dhagan asagana waxaan dhahaa CH3 wakas ethane-ki oo ah C2 H6 oo ah 2 carbon iyo 6 hydrogen noocan oo qori kartaa propane-ki soo qaadadana kan 3 carbon soo maahayn wakas 3 carbon oo ahay propane-ki waa kasoo sawir ah 3 carbon carbon-kan 3 hydrogen oo haysta kana 2 hydrogen kana 3 qaabkan waa u dhigi kartaa CH3 CH2 CH3
qaabkan waa loo qoraa saddexdaas habba waa loo qoraa oo ah molecular formula, structural formula, condensed formula. intaas waxa weeyaan waa sida alkane-ka loo qoro loo sawiro. halkan waxaan ka galaynaa wax la yiraahdo alkyl group. group la yiraahdo alkyl ayaan qaadanaynaa. alkyl waxaa la yiraahdaa waa alkane-kii oo hal hydrogen laga jaray. alkane-ka oo hal hydrogen haddii laga jaro oo meeshii awal alkane ahaa alkyl buu noqonayaa. مثلا تصالح ميثين او هاي مو هذه هل هيدروجين لغا جرى ميشان سد هيدروجين اي نقطه هل كربون سد هيدروجين وحالها ميثيل ارها واي ال ايو كدمانا markaas booliska laba carbon lix hydrogen ethane oo ahay hal hydrogen hadan ka gooyo wuxuu noqonayaa alkyl oo noqonaa waxa loogu dhawaaqaa ethyl ayaa loogu dhawaaqaa sabab marka casharkeena maanta waxaynu ku fahanay aliphatic hydrocarboniska in laga helayo fats and oils saliida xoolaha iyo saliida waxa weeyaan jirta waxayna u kala baxayaan saddex alkane alkene iyo alkyne. waxaa kaloo jiro aromatic hydrocarbons oo laga helo dhirta ayaa laga helaa gaar ahaan pleasant plant kuwa carafta leh ayaa laga helaa ayagana waxay u kala baxayaan benzenoid iyo non benzenoid kuwa benzene structure leh iyo kuwa aan benzene structure lahayn. alkanes waxaan ku qeexnay saturated hydrocarbons waa hydrocarbon eriksan weeye waa kas carbonkan afar hydrogen oo haystaan only containing carbon single bond dabaladiisi waxa weeyaan hal weeye. waxaa ka mid ah methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. qaacidada lagu dhisayna waa C(n) H2n + 2 ayaa lagu dhisaa isagoo waxa weeyaan oo molecular ah qaabkaas loo qoraa isagoo structure ah qolfoof ahna qaabkaas loo sawiraa isagoo condensed ah la aruuriyayna qaabkaas ayaa loo sawiraya. waxaa kaloo aynu casharkan ku qaadanay aynu kusoo gabagabaynaynaa alkyl group la yiraahdo alkyl aynu ku qaadanay. alkylku muxuu yahay waa alkane-kii hadda oo hal hydrogen laga jaro oo methane hal hydrogen ka jar methyl buu noqonayaa. ethane hal hydrogen ka jar oo laba carbon iyo shan hydrogen buu noqonayaa ethyl ayuu noqonayaa. inta kalena sidaas ayaad kusii wadaysaa. casharkeena maanta halkaas ayuu waxa weeyaan ku egyahay. hada wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.